Halkani waa Hirshabelle TV. waxay soo bandhigo miisaaniyadda sanadka dawladda goboleedka Hirshabelle Soomaaliya ee muddo ku dhaxaysa kowda Janaayo ilaa 13 Diseembar. wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Hirshabelle mudane Maxamed Dheere ayaa baarlamaanka Hirshabelle ka hor akhriyay maanta qorshaha wasaaradda maaliyadda ee miisaaniyadda sanadka 2019. waxay soo bandhigo miisaaniyadda sanadka dawladda goboleedka Hirshabelle Soomaaliya ee muddo ku dhaxaysa kowda Janaayo ilaa 13 Diseembar. mudanaha sharafta leh baarlamaanka wasiirada waa mid miisaaniyadda waa mid loogu talagalay in lagu sii wado howlaha hadda socda ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo inay fursad dad u siiso in la dhiso wasaaradihii iyo hay'adihii kale ee dhinaa iyo sidoo kale inay noo saamaxdo kobcinta qaar ka mid ah wasaaradaha oo la halmaala horumarinta bulshada dhaqaalaha. tani waa tallaabo weyn oo hor u qaadnay Hirshabelle maadaama aan dhammaanteen ka wada shaqaynayno inaan gacanta ka geysano dhisidda mustaqbal nabad iyo barwaaqo ku dheehan ay helaan dadka Soomaaliyeed ee reer Hirshabelle. miisaaniyadda waxay ku dhisan tahay lafaguris quman oo lagu sameeyey arrimaha mudnaanta u leh dowlad goboleedka iyo kheyraadka xadidan iyada oo dibadda lagu saarayo arrimahan mushaaraadka xubnaha baarlamaanka wasiirada howlwadeennada sharciga waajibinaya in la magacaabo ilaalinta iyo jiritaanka ciidamada amniga iyo booliska maadaama ay taasi ku xiran tahay kobaca iyo horumarinta bulshada dhaqaale dakhli ururinta gudaha oo la sii wanaajiyo iyo xoojinta adeegyada tayada leh ee la siiyo dadweynaha iyada oo loo marayo shaqaalaha rayidka ee dowladda oo tiradoodu korodhay iyo gaar ahaan adeeg bixinta guud ee kala duwan hay'adaha nidaamka iyo kala dambeynta badqabka arrimaha dhaqaalaha iyo guryeynta iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada waxbarashada. mudanaha sharafta leh baarlamaanka miisaaniyadda waxay u gobol xaaraysaa wadadii lagu dhisi lahaa mustaqbalka kan ka wanaagsan oo yeeshaan dadka reer Hirshabelle. fadlan inuu ogolaado inaan soo koobo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira miisaaniyadda 2019. dowlad goboleedka Hirshabelle waa inuu mar walba iska ilaaliyaa inuu noqdo mid ku tiirsan maaliyad dibadda uu ka helo taasoo mar aan la helin inagana hor istaagi karta inaan xaqiijino yoolkeena inaan helno nabad barwaaqo iyo isku filaansho dabcan waxaan u baahannahay naan doonnaa waana soo dhaweynaynaa taageero maaliyadeed aan dibadda ka helno hase haatee waana ku talagalnaa waxaan helayno sida uu waajibinayo xeerka maareynta maaliyadda maamulka dowladda. miisaaniyadda waa mid la xakameeyey oo aan laga badbadin inta la heli karo halkii suuragal ay tahay waxaana qorsheynay inaan sii wanaajino awoodda aan ku ururin karno dakhli inaan taageero dibadeed ka helo deeq-bixiyaasha si loogu bixiyo howlo ururinta haddaan adiga waxba soo saarin deeq-bixiyaasha waxaan kuma siinaya macnaheedu